40 كالنووي جرداني رحمه الله شرح يسوح كشة قصة عجيبة حديث كاس رابعة رضي الله عنها بين يدو تكنيسة أيو ننتوق أقل كي يقول صوت عيبا ليدي مركاسو أركي هويني يسكت تكنيسة أو أن إن يرنا عن عبسنين ما عبسنيسو وين مقاشا شنقدع إنو توق أقل كي صوت عيبا أركيسا لكن ما دقاقين ما شيدين كما دقاقين صلاة دين كما يبحن وعلى وحي أقل كألابو طالة ألابو ما يقوليني وحي يالي مركو ورسولي البح الردي وكسو قليبا كل نقطة مارة تاني قدار بيكون نقطة دربي مركاسو يابي وصال نقضي حدنا وحوري هالكاد كسو قشي هالكاد كسو قشي معين الباب كو فرين هو أركا مرة اللي مركو الباب كسو قارنا وحو أركا الباب كو حرام دربي ومضحة كل دفتع قدار مركاسو يابي هذا وصل نقول دركشي ودبقات دركسيوني مركاسو هل كيلو سلي وات هل كسو قشي فرنا كبح مركو قارنا ماشي وحرنتها هيبا alaabtii uu sitay oo dhan buu dhigay baa leeyahay ila salaada ay ka baxaysay yidii uu sugay wuxuu kolka salaada ka baxday buu ku yiri wixii aan ka qaato aniga ku dhigay albaabka halku iga xigay sheeg buu ka yiri 40 ka nawawiga ayuu ku sheegay jardani sharaxaas qasadaas markaas ay ku tiri anigu albaabka ma xirin albaabka xagga sare laga xidhaabay tan xagga sare ma doonaysaa in albaabka laga furo ha toobadkan bay ku tiri بلنا قال إلهي نظن قنص ودم بالدبات كل عين وتوجد عبافة إلهي وبلغات ويقبل نبولي ما أنت الله قبل عبينا توبت كانوا هل مركل يا مركوس ده يريد الباب جوا كاسة كبح الباب كيبو كبحي ويسجدوا وحي تري يا ربي أنا جواك قلفتي سوى سوجدي قلبي صادق أخش شغل إله وقلبي سوجدي بكتلي هذه بكتسيدي بكتوبت كانوا نبى مالين دو تقصى عجيب أي شيء لبا كونية تضبيط طبانكي ودنا ذا الاسم هذا G20 جي لبا تنك ودنا أدونك أبور شد بدن مال قبلنا دو دي بالشرك ودك الجنيف لا بس كوي مدن دختر بدختر كو قوم بدنا عالم كانوا يكون عزومة دين شركي وحيد هذا الرجني والرجل أدونك أقول دقالها بدنا nin walba keligii buu diyaarada leeyahay rag waxa ku jira wadana dhan ka maal badan wadana dhan qaar baa 6 wadan ka maal badan 6 dawladood isku tagay buu qaar ka dhaqaale badan yihiin waxay leeyihiin laakiin raaxa ma hayno maxay yiraahdeen raaxa ma hayno dawooyin badan waad hesheen annaguna waxaan diyaar la nahay inaan nimaal gelino ee waxaad keentaan cimriga bini aadanka sidii loo biirin lahaa daawadeeda doondoon keena biiradeen cimriga waxa raaxadii naga qaaday oo dhimanaysa taasaan hor taagan gabowgii waa la tacallaa biiradeen oo dawooyin iyo isboor iyo waxbaan sameeynaa biiradeen haye iyo cunto fiican iyo لكن تنهر تاجنين هبيك كسر حل أنا هاي وموتك حلو كنا مكاني كرام هر مكاني كرام يا مكاني كرام لكن دقيقة قصة كله صدق نبى النبي عيسى عليه السلام صدق ولا السعودين أي مادين مل بنانك وذهب كيالو دايماً مركز النبي عيسى كويد وحن ودايماً والذهب والجوهرات مركز سيد هذا النقاط مركز النبي إلى هاي صدري هي أدوية مال موضة مرتبو كيدي مركز ده أنا كقاعدة هنا ده هذا القاعدة ثاني راعي مثلا واديك هذين وقاعد بودي ديني أدوية اسمه راعي أبو كيدي والنبي الزاهد والنبي عيسى عليه السلام صدق دين ويكهرين بلد النبي أي أندر ذاك مركز الذهب كي قاتن وإلا السعودين وإلا اللقيين magaaladii markay u dhawaadeen bay yiraahdeen hadaan maalin gal wala naga dhici habeen ku beegno laakiin waa gaajoonayna way tashadeen waxay yiraahdeen laba dahabkaasi ilaaliso midna magaalada intuu tago cuntaha inoo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolku ka dhaqaaqay
labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini'aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nagu fiican yahe ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha ha ku ridno ha ku aasno dahabkana labadeennu ha kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoonbuu kugu fiican yahe cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintaana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaasi halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga laba qiso cajiiba quraanka ku taala labaduba waa ina nuux iyo ina ibraahim qisadii nebi nuux inankiisa markii ummaddiisa la halaagayey waa kii ilaahay ku lahaa doon samayso nuuxow adiga wixii ku raacana doontaa saar ehelkaagana doonta ugu yeer inay fuulaan waa kii nebi nuux inankiisa u yeeray ku yidhi qaala yaa bunaya irkab macna walaa takun maca alkaafiriin qaala yaa bunaya inankaygi yaraayow irkab macna nala soo fuul walaa takun maca alkaafiriin kaafiriinta macooga ha noqon buu ka yidhi qaala sa'awi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala sa'awi xataa aabba ma odhan baa la yidhi ilmo aabbihii u yeedhay ilmo waalidkiisu u yeedhay oo markuu u yeedhay aabbo ama hooyo odhan waaya hada calaamatu shaqaawa bay culimmadu leeyihiin waa calaamatu shaqi waa caaq ilmahaasi sida u jawaabaa laga garanayaa ina nuux jawaabta uu bixiyey eeg ina ibraahimna jawaabta uu bixiyey u fiirso ismaaciil wuxuu yidhi yaa abati ifcal maa tu'mar aabba amarka lagu amray buuxi buu ka yidhi laakiin nuux inankiisa wuxuu yidhi sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa xataa aabba ma odhan baa la yidhi dhallinyaradaan sheegayaa iyo ciddii waalidadoodu maanta ay nool yihiinow waalidkaagu markuu kuu yeedho hadday hooya ku yeedhana hooye macaanay dheh hee hooye macaanay hadduu aabbahaa kula hadlana hee aabba macaano dheh waa ilaa haddaad how tirahdid keliya how ba maxaa tidhi hada calaamatu caaqul waalidayn weeyaan nuux inankiisa badbaado ugu yeedhayaa inankiina badbaadadii u iska diido wuxuu yidhi buurtaasaan biyaha ka fuulayaa faxaala baynahuma almawju fakaana min almughraqiin baa ilaahay yidhi iyakoo labadooda hadalka isweydaarsanayaan hirarkii mawjadihii duufaanka ayaa dhex maray deedna inankiisi waxaa ilaahay ka yeela kuwii qarriqmay kuwii kana waxaa lagu yidhi inii araa fi lmanaami anii adbaxuka fandur maada taraa waxaan ku manaamay anoo ku beraynaya sida neefka xoolaha loo bereeyo ee aabba maxay kula tahay buu ka yidhi qaala yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin aabba amarka ilaahay buuxi oo yeel aniga hadday noqotona waxaad heli doontaa inaan ka mid ahay kuwa saabiriinta adkayste labada aabba maaha bay culimmadu leeyihiin maaha labada waalid labada aabba maahin waa labada hooye ayaa kala duwan ina nuuxna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo ilaahay cilaaqa aan la lahayn hooyo nebi nuux aanan rumaysnayn hooyo gaalnimadeeda qarsanaysay oo inankeyga ku lahayd odaygan qaylaayo warkiisa ha maqline hor addanahaaga qabso ismaaciilna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo tidhi markii cillada lagaga dhaqaaqay tidhi ilaahayna dayici maayo ibraahim oo da iska soco laanna ilmaha baa la yidhi inta badan tarbiyadda hooyadaa saamaysa ee tarbiyadda aabbuhu ma saameeyo inta badan ilmuhu ma hooyuu la joogaa mise aabbo midkuu la joogaa hooyuu la joogaa hadday hooyadu hagaagsan tahayna ilmuhu way hagaagayaan hadday dumarku naga baanaadaanna ciyaalku way baanaanayaan waayo dugsiga ugu horeeya mujtamacu ka soo baxaa uu wax ka soo bartaa waa hooyada haddii dugsigaasi uu noo hagaago uu dugsi diin danaynaya u noqdona mujtamac diin danaynaya soo bixi doona
hadday malcaamadahaas iyo dugsiga uu naga halaabo uu naga xumaado ilaahay nagama xumeeye waa haweenkan u jeeday hadday haweenku naga xumaadaan waxaad ogaadaan jiilalka soo socdana way naga qalloocsamayna ogaada marka dumarkeenna xaasaskeenna gabdhaheenna hablaheenna inaan diinta ku tarbiyadaynaa waxay ka dhigan tahay mujtamaca soo socda hagaagiisii baa ku xidhan gaaladuna laba qolay ku dadaalaan maanta laba qolo dumarka iyo ubadka labadaabay naga soo galaan odayaasha dan uma leh ragga dan uma leh gaaladu labaday ku dadaalayaan maanta waa labadaas waayo jiilkan maanta jooga waxay leeyihiin hayna dhaafaan laakiin jiilalka soo socdaan bedelaynaa bay gaaladu ka fikirayaan inay bedelaan lidalika nebi nuux calayhi salaam islaamtiisu maadaama gaalad ahayd oo gaalnimada qarsanaysay tarbiyadda inankeyga iyadaa saamaysay ismaaciilna aabbihii kuma agbarbaarin hooyo ku agbarbaaray tarbiyadii hooyadii baa saamaysay hooyo caynkeeya hooyo ilaahay ku xidhan hooyo cidna markii lagaga dhaqaaqay tidhi ibraahiimo ma amar ilaahayba haa ilaahay nima dayacayo socabay ku tidhi ilaahay waa ilaaliya ibraahim inankiisii ma gowricin ibn qayim aljawsi raximah llah wuxuu yidhi maqsuudku ma ahayn ilmaha gowrac maqsuudku wuxuu ahaa jacaylka alla mooyaane jacaylada kaloo dhan qalbigaaga ka sar waxaan xasuustaa dhowr iyo 10 sano ka hor jamaaca magaalo ku baxday magaaladii markay ku baxeen dadkii way dhegaysteen way la yaabeen waxay yidhahdeen war ininku dadkii wanaagsanaa ee masaajida camirayay baa tihiine dadka xaafadan degan ee salaada aanan tukan mid qaado jamaacada u geeya nin odayaa yidhi oday dariskayga oo 70 jir ah oo waligii salaad aan soo galin oo khamrigana aan habeen iyo maalin u kala saarin ayaa ila darisay hadduu igu kiin arkaano inila socdana dhibba ay qabsane waa oday dhib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waaya wixii dhibaatay in soo gaadhana inkaas gaarsiiyay marxaba albaabkii bay garaaceen waa shantii galabnimo isagoo hurdo ka soo kacay qorradii khamriguna miiska u dul taallo islaan male ilma male waa keligii buu nool yahay dhowr iyo 70 jir saa u qarqarhaya way ag fadhiisteen albaabkii markuu ka furay ina jamaaca nahay masaajidkan kaa soo booqanay waa ku soo ziyaaranay ma ziyaara ha ziyaarada waan aqaanay u kaadiyo buu yidhi qolkiibuu ku noqday lacag buu soo qaaday ziyaaradii wuxuu moodaya qoladii tariiqadaha ee suufiyadu beriga reereeraha waa ziyaaradii sheekhabele keena orange imika iska dhamaataan u malaynba ana xaggayga Djibouti imika iska dhamaatay xaggiina mooyaane imika ziyaarada waxaa isku badishay ilaahay dartii baa qofka loo ziyaaranaya oo waxaa badishay ilaahay dartii baan kuu soo booqano kuu soo ziyaaranay waxaa duyana kuma sidno waxaa duyana kaama doonayne khayrka jamaacada ka yar dhageysan wada dhageysanaya markaasuu yaab wuxuu war dad lacag diida markay lacag ma qaadano wali intaan noolahay waa qof lacag diida waa ku weey maxaa tihiin ma annako adeer lacag ma qaadane laakiin waqtiga dadka ka qaadana waqtiga 20 midhan ma nasiin kartaa soo fariista wax lacag diida maanaba arkay buu la yaab bay ku noqotay maqto khamrigan halkan ay taala jamaacadna halkan iska fariisteen indhaha ka qabsadeen waxay yiraahdeen annaku jamaacad waxaan nahay martiya magaalada Himalaya ka imanay dadka muslimiintan ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweyna waan soo buuqanaynay dhalinyaradana masaajidkan ugu yeedhaynay halkii hadalka markay uu furfurmay wax lacagna ma qaadataan ma qaadano oo lacagta ayay naga bixiya bil maali wa nafsi bil maali naftayadii maalkayaan ku soo baxnay ilaahay bay markaa kala hadleen cadamadiisi aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii u fikray markaa wuxuu hadalka adigu leedahay waligay ma maqal buu waligay wax hadalka ila soo gala ma maqal buu maxaad iga rabtaan adari sheeg lacag waad igu diideen wax kala sheegtay waxa ka rabnaa anagu laba qof aan nahay amiirkii iyo jamaacadii odayaashii miskiidkay joogaane inaad jamaacad u tagto waad soo salaantid bas intaasaan ka rabnaa ma intaa usaha waan raaci darkii uu soo xidhay
dhaladii khamriga halkii buu kaga yimid quradii la socdo masaajidkii buu jamacadda u soo raacay wuxuu yidhi salaad ma aqaano waxaa la waxba male iska weysayso weyse ma aqaano kana ku ag fadhiisana siduu sameeyo samee salaad ma aqaano kana kugu ag tukane siduu isagu u sujuudo u sujuudo suu rukuucan u rukuuc halka intii uu sameeyey ayay liin yar iyo muus yar iyo shaah yar bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafaddu way daawanayaan odayga hebel baa maanta tabliiq miskiidka soo geliyeen war tabliiq ma soo gelin ilaahay baa soo geliyey yaa soo gashay la in yahdiya allahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumri nacam cali nebigu markuu hadalka ku lahaa dagaal buu u diray dagaal khaybar buu nebigu u diray inuu soo baabiyo yahuud laakiin nebigu ka daba hadlo wuxuu yidhi cali ogow miyaan la dagaalamaa buu ka yidhi ilaa sideeda ay ka noqonayaan markaa buu nebigu cali dhegaysa buu ka yidhi mid iyaga ka midoo sababtaada ilaahay ku soo hadeeyo ayaa geelagiisa casas kaaga khayr badan maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dan lahaa hadday dadku iyakoonan lala dagaalamin ay diintii kaa dhegaysanayaan oo diintii kaa qaadanayaan dagaal meesha ma imanaya ogow dacwa muqaddam calaa kulli shay dacwaddaa ka horraysa wax walba jamacaddii waxay yidhahdeen war annagu ma soo geline ilaahay baa soo geliyey daaya salaadii maqrib buu la tukaday bayaankii buu la dhegaystay cishaa'igii buu la tukaday cishaa'igii intay soo kaxay bay masjidkii keeneen haddana salaadii fajar isagoo lugihiisa ku socda masjidka soo galay toddoba maalmood isagoo salaadii laazimay dembigii ku jirana ka dhex baxay tiisii baa timid oo ilaahay waa ka manna qaatay Usmaan bin Affaan Allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto Usmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimid Usmaan bin Affaan wuxuu arkay Usmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay Usmaan baa ninka u yeeray war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtay maxaad u socoto dee nebiga ii ka soo diray buu yidhi sallallahu alayhi wasallam oo yidhi Usmaan u tago waxaad ku tiraahdaa waxuu nebi maxamed ku amray wixii caawa aan arooska iyo reerkayga aan ku aqal gelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay Usmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi dee maxaad u kacday bood igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khaadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacagu u dhiibay israafka iska ilaalinayeen maalin buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam masjidku soo galay wuxuu arkay nin reer baadiye ah oo salaad tukanaya oo salaadii dhexdeedana ku ducaysanaya uu istaagay nabigu markaa ducadii buu dhageystay waa duco cajiib ah duco boqolkii 90 waa ilaahay ammaantiisa yaa man laa taraahu alcuyuun walaa tukhaaliduhu aldunuun walaa yasifuhu alwaasifuun walaa tugayiruhu alxawaadith walaa yakhsha addawaa'ir yaa man yaclamu mathaaqiila aljibaal ilaa aakhirkayga markaa buu nebigu yidhi Abu Muusa al-Ashcari buu u yeedhay wuxuu ku yidhi ninkaa ducada markuu dhammeeyo ii keen buu ka yidhi markaa baa loo yeedhay ninkii nebigaa ku doonaya namari marxaba markaa buu nebigu sal alla alay slam haniimo markaa la soo qaaday oo xoolo markaa uu qaybinayey ayuu kiish lacaga intuu ka soo dhex qaaday buu nebigu ninkii gacanta kaga riday nin baahan oo faqiir oo reer baadiye ah oo kuus lacaga loo dhiibay ka warrama saasuu u qallibay uu farxay markaa buu nebigu ku yidhi lacagta sababta aan kuu siiyey maad garan buu ka yidhi markaasuu yidhi haa maxaad u malay inaan kuu siiyey dee tolnimaad ii siisay buu yidhi markaa buu nebigu ku yidhi waa runta
رحمكم حق وإليه وحلسكو سيئ لكن لعقت وجددا كوسي وحويان بحسن ثنائك على الله سدع هدرت والإله يعدو أماني سي أي كفر حب رسولك تادرت بنكوسي يقولي سدع الله هو بريس سدع الله هو أماني سي وايو مقصود كالنبي يدا بيد الله كان أها إلي بني آدم كإله كحران مركو أرك النبي يقول شقدي سي وصعتا وكفر النبي عليه الصلاة والسلام ده نوصي تعلق إلهي دتكو أي لليهين بنبي أكتس كوينه لعبت أكتس كموينه أنك جماعة بري أنك خارجين ودنا ذا قال هذا شيء أي الله نوشة إن مسلم أو صومالية لكن ماشي الجنوب حجر 40 كيلومتر وابو قني إن أضيع دادي ساكو قياس الدوري اللي حدا جر مركز ويا جماعة هالكيك حقا يضل كيفان كيفان محاولتي ما دين ضد كمسلمين هنا سووا زيارة بس شيء وخرج كيا نقبحية بالمال والنفس وفيزا هو ضد كان لما هلا سيادكو هشين إلهي بابحية رزقك هدوي ما دالكن وادمن أما عزكو كالي ما دلكو كالي محاد دونا سانيمك ده جماعة دي مسكيت كاسي جوغان إنا نرى عليهم دونين تانو مسكيت حد ما تجاوب حد مالما كلنا صلاة دايدنا إلهي بقولي لكن مر هدات بري ما جوكتان واحدة ها وهني ما بقولي ذلك الصوماليين وركي سرباي صوماليا هي كاله صوماليا وركي سوالو قسينا صوماليا إسلام لماذا نصعنا ومقته صوما أفكا صومالي وحسينا يا هاي نمري شو نوي من المعلم تيدمه وانصور دويني نصيب جماعة دو حلا سعود أضي مركي استهودين ضدك الصوماليو مركي استهودان مد قرابة دي سي يزقرتين مركز هون برمي كيبل هبل هذيك اللي ورنجري ها هو بحد كشقة سايمك وضم كان شقة يا أنا كان نودي من يقول الشقة ما جرتيه لكن جامعات ما دكتور وضل كي مركي لجوجنين جامع يا ده هيدا وقانت كودي من بيرسطها محيطها بليشك وعد حرير كلا بدأ الدولة ودول الدرس ككد حيان برتاوي علاقة بين الدول مركز وكوير حرير كهدي إلهي نقد حيما برتا مركز ولمي صلاة ده يدبوا قلب مركز حرير كهدي إلهي نقد حيما برتا مركز ولمي بروفيسور هذا جامعة ده ينيدقا حرير كهدي إلهي نقد حيما كهلان يكو ما يقانان مرقاسا لقول محمد برن بالقولي حديث كان ماذا مقالوا النبي يقول هي أعمار أمتي ما بين 60 و70 عمر الغالب كأمت يذبوا النبي يقول وتضباطني لحظة انت أودا حيسا أذكر واحد لا دوري لحظة جربانا هي انتهت سنة لندن تابو كيدي صلاة دينا واحد لا قلب حريرك أذي له نقد حيانا والضعيف كون وحكود دقنا وحات حريرك ما بيقانان سيدي كلها تهيبو كيدي أو عقلك أجي رشد أجي هذا الكثير والبصير يا جماعة دوتشري لكن نكي حبيك عشاء بركوتو كذا قريج يسيبو تجي صلاة دي فجر يسقوا علابتي وتو جماعة دوي مدي وعود هذا الكاد يقول ترى هذا محلك سيحكر ويجي هذا الكاد حل يقول ترى هذا وأكجيب سكر ويجي داعية مركون نقول ضد وناكسن الراعو ومد خير ورجينا يو ومد وناقيك كفي كريو هذا القيس إلهي وحوق لنا يا تأثير سامين بو هذا الكاغو يا لنا يا هذا سو إصلاحا يا ومدن إصلاحك كسو قيب قادنا إنسان إمام مالك رحمة الله عليه أيا مالين وحوار كين عند اللي يراه وشارب الخمر يا وسكرامي مركا لأن مركو سكرامي يركي يرى سكرتي باكسين إيسا الله 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 شيخ يا أبي والسكران اسم الجلالة عجيب إمام الديسي انتو صوق هذي أيو صوص صعبي باليرو بريركي خمري بيبو أفكا كقبيي وعسري بالمقعن مقعي إلهي اسم الجلالة أفكن وكسو بحي مات كم مساحدي ذا لأن مرقاسو كم مساحي بالإساسو كم مساحي لأن مرقاسو يقول شيخ واسكران سنة يقتك واسكران سنة يسكت كيدا مرقو كبيي بوشك يقتكي هبين كينا وودو عيبا ليلي
ilaahu qalbigiisa adaha iyo soo hadeey imaam maalik raxmatullaahi calayh habeenkii markuu jiibsaday ayaa manaan baa lagu yidhi sidaad annaka daraadaya adigu afkiisii dhareerkii khamriga aad uga biisay ayaan annakuna adiga daraadda qalbigiisii khamriga uga biinay baa ilaahay ka yidhi khalaas salaadii maqrib salaadii fajar imaam maalik markuu salaadii tujiyey dadka darsigii buu bilaabay wuxuu ka dhex arkay yarkii yaraayoo darsigii dhex fadhiya markaasuu ma isagii baa mise maaha markaas uu u yeedhay markuu darsigii dhameeyo wuxuu yihi yarkii ma tihid haa waa anigii say wax u jiraan bal ii sheeg adigan masaajidkii ilaahay wuxuu yihi xaaladayda xalay toole kii kaaga warramay baa anigana soo aadayey buu ka yidhi xaaladayda kii xalay toole kaaga warramay adiga unba anigana isoo hadeeyey xataa fii siirati cumar waxaa ku taalla haniimadii ayuu maalin maalmaha ka mida cumar dul fadhiistay markaasuu u qaybinaya saxaabada markaasuu arkay nin yaroo gacan go-an markaasuu yidhi gacantan maxaa kaa gooya buu yidhi wuxuu ihi qaswadii halkaas ahayd ayaa dhaawacan la ii geystay buu yidhi ku dhaawacmay markaasuu lacagtiibuu cumar soo qaaday kun buu siiyey kun kale ugu daray haddana markaasuu cumar u qaybiyaa isagana weli meeshuu taagay oo lacagtii buu tirsanaya markaasuu cumar ninkii isha ku dhiftay haddana mar labaad mar alle markuu dhaawacii arko ayuu soo qaadaa kun kalu haddana siiya markaasuu cumar haddana u qaybiyaa markaabuu haddana isha ku dhifta halka yarka gacanta dhaawacu kaga dhacay markaabuu kun kala qaado uu tiriyaa uu siiya mar dambu cumar markaa uu waaya ki yaraa markaasaa lagu yihi cumar baa war ninkii meesha joogay mey waxaa la yidhi xoolaha aad siisay badnideeda ayuu la dawakhay uu ka socday meeshii wallaahi baan ku dhaartay buri cumar binu khadaab hadduu ninkaa halkaas sii joogi lahaa oo ishaydu mar walba naburkaa diinta ilaahay loogu dhaawacay ishaydu ku dhici lahayd xoolaha halkaa ayaa la isagaa ku dhammayn lahaa buuri ma nin ilaahay dartii u cawirmay oo diinta dadaalkeega iyo koryeelkeega iyo difaaceega loo dhaawacay baan adduunyo ka haysan buuri anigu may wallahi waan ku bixin lahaa buri wax meesha yaallo dhanba bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra